sidee wax u dhaceen sida Cabdiwahaab ee gabadhaadii baa la sheegay in la gowracay ama madaxa wax looga dhuftay oo gurigaaga hortiisa la soo dhigay marka sidee wax u dhaceen waxay u dhaceen gabadhan markay dhiig isada ka baxday waxay aaday hilib baan u dirsaday hilibkii markay ii keentay baan gabadh kale waxay tiri hilib meeshii ma yaali haabay tiri waxaana hooyo usoo qaad markay usoo qaaday goorma markaasi ya waa adigu 2 saac bay adigu ku dhadhowdahay mana gaadhin xalay miya maya waxa weeye shalay haye shalay subaxii weeye dhiigisada waa ka subaxa ah haye gabadhii baan ugu diray waxay tiri gabadhii lacag may qaadine markaad ninka u tagtay soo waco lacagta markaasaan u shubaya haye gabadhii baa isoo wacday gabadhii waxay tiri gabadhii ma haye gabadhii miyaada hilibkii igu diray haye waxaan idhi waan kuugu diray gabadhii hilibkii miyaada gabadhii arag aniguna waxaaban isleeyahay gabadhii bayba u tagtayba haye gabadhii mar kale isoo wacday waxaan idhi ma haysid miya ma hayay tiri mar saddexaadkii markay saa ay la soo hadashay oo adigu 2 saac ayan isleeyahay wax yar baa dheer baan intaan istaagay meesha hilibka lagu gado way noo dhowdahay jid waxaan gelnahay jid saas u diritaysanoo wax laga arki karo jidkii baan saa u fiiriyey ninkii baaskiilkiisii iyo waxaan arkay baaskiilkiisii iyo gaariga baaskiilkiisa isagoo saaran iskale saa xagga suuqa isu jihayaan arkay haye waa ninkee waa mid hilib gaba oo kii gabadha hilibka aan ooga diray haye ninkii baan wacay waxaana war gabadhi ma kuu timid suu yidhi markii hore ay ii timid mooye mar dambe ma arag anigu gabadhii haye gabadhii nin kale intaysan gaadhin baa beladu qaada waa gartay marka shalay oo dhan baan wareegaynay meel walbaan maray saaka markuu waagu saa u bariyey baa oo la galay maaragtay salaadii oo laga soo baxay baa dadkii u horeeyey xagga xaafadda usoo socdaa waxay dhaheen gabadhii caashaahi maydkeeda halkan u yeelaaye oo iyo halkeen haye marka saasay arrinta ku dhacday meel aniga adinka dhexe maaragtay mar ay tahay adinka u dambeeyey mar ay tahay xaafadan anagu aan deganahay gurigaa saa loo ballaqay gurigii gaaridaa ka soo baxay adigu aagaan is idhi niyad ahaan wuu ku istaagay anigu xalay ma seexane niyad ahaan meeshu ku istaagay baan is idhi haddana xus buu yidhi aniga niyadayda mana seexane waxaan is idhi gurigan gaariga xilligaa ka soo baxay salaad lama geline maxay tahay haye intaasna way jirtaa oo anigu tuhunkaasna waan gabadhaad intee sano jir ahayd hooyo gabadhay 13 jir aan weliba u dhamaanay bilay oga dhaman yihiin baa meesha iyo xaafadda ay wax ka dhaceenna waa halkee gaalkacyo ka xagee weeye gaalkacyo waxaa weeye xerasiinay ahee la burburiyey baan xagga bariga ka nahay oo xagga jidka aeroboortka ka saaran oo xagga bariga gabadha maydkeeda haddaad aragteen sidee wax u qabtay oo xagee wax laga gaarsiiyey gabadha anigu horta marka saa loo soo dhigay maana fiirinin markii la geeyey ma fiirinin laakiin gabadha waxaa layihi madaxaa laga dilay ilkihii waa laga daadiyey meel walba oo qaarka sare ah eber bay ka ahayd mida kale way isu gooyeen oo gabadha dad badan baa isu dabamaray niman badan baa isu dabamarayo kufsina way ku sameeyeen waa gartay marka waxaan ku weydiinayaa hadda ka hor ma jirta cid iyo aad isleedahay waa colaad kala dhexaysa ma jirta maya anigu weligay xaafadan cid kalama daririn ayadu sidoo kale ahayd waa qadar rabi ma jirto wax aana oo dabagal oo xagga dagaalka iyo darisnimada ma jirto waayahay hooyo dawladda iyo haddaad la xiriirteen oo gabadhii maydkeedii hadda la helay marka maxaa dawladda war idin siisay wax baaritaana ma socdaan haa wiil baa wuxuu igu yidhi baaritaan baa socday wiil baa kula soo hadlaayo wiilkaa la hadal buu igu yidhi baaritaan waan wadnaa saas igu yidhi wiilka
laakiin anigu waxa warbixina kaama siin karo. carruur intee kuu joogtay? ya carruur adi intee kuu joogtay? carruur waxaa 7 hadda joogta. waayahay hadda gabadhii ma la aasay mise weli baaritaan bay ku jirtaa? gabadhii lama aasin baa la frinjiyeer baa la gelinayaa. in la geliyey in la gelinayo ma aqaana. frinjiyeer baa la gelinayaa baa layidhi. meesha subaxdii laga helay ma gurigaaga hortiisa mise waa xaafad kale? may waa guriga waxaa weeye jid baana dhex mara annagii xaafad kale. guriga nagu soo jeedo oon waxba noo jirin, guriga labaad ee ku dhegan iyo gurigaasna saa noogu soo jeeda dhexdooda oo kan kale xaggiisa xigaa laga helay oo saa loo soo dhigay. isagoo waxaa la yidhi bacbaa xataa ku jirta. anigu marnaba ma fiirinino bacbaa hoosta kaga jirtay. hadda intay fuurtay oo meel walba laga dilay baa ma fiirin anigu. laakiin halkaasaa laga helay xaafadana saa dadkii ka yimid dugsiga iyo salaadaba iyo ciyaalkii dugsiga u socday baa caashaa maydaha taalla saadaan oogu dirnay. de dadkii waa la qaaday ma fiirin anigu. laakiin waxbarashada heerkee ka gaartay? waxbarashada galaaska waxay maraysay 6 bay ahayd. iskoolka qur-aankana adigu 18 jis meelaha 19 bay ya huud bay maraysay huud. waayahay hooyo oo allah samar iyo iimaanha kaa siiyo gabadha. amiin.